marka aad eegto xaaladaha kala duwan ee uu haatan ku sugan yahay dalkani Somaliland ayaa ah mid ay duruufo badan ku gadaaman yihiin iyadoo ay hadda fooday nagu soo hayaan ololihii doorashooyinka madaxtooyada duruufaha uu dalku marayna ay yihiin kuwa aad u liita sidoo kale waxa dalka ka jirta abaar aad u baahsan oo saameysay dad iyo dunyaba ayaa waxa jirta in ay siyaasiyiintii ku tartamayeen madaxtinimada dalka ay yihiin kuwa ka indhala duruufahaasi kala duwan ee ka jira dalka iyagoo ay siyaasadii si xumaanayso ay marayso meel aad u liidata isla markaasina saameyn weyn ku yeelatay bulshadii ku dhaqaneed guud ahaan Somaliland oo ay hadda isugu faanayaan hebel geel baa isugu kaay jira iyo hebel dhiig baa isugu kaay jira sidoo kale waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dhalinyaradii ku jirtay siyaasadda Somaliland iyadoo ay muddooyinkii u dambeeyay ay bilaabeen inay habeenkii is ugaarsadaan wax yeelana iskaarsiiyaan ama dhaawacyo kala duwan wallahi haday arrimahaasi sii socdaan oo 24 saacadood laamaha amniga aanu gaarsiinay codkii iyo numbarkii ninkii ii hanjabay 8 iyo 13 mir laga jawaabi waayo waanu ka jawaabayna talaabaan u qaadayna sansaankaas waxa tusaale u tahay Somaliland dagaal sokeeye lagu wado 94 baa lagu celinaya niman aan han lahayn oo aan ku mari kari kartidooda meel oo aan umadu u codeynayno is og ayaa doonayay inay kala diraan nin kasta gurigiisa qori baa yaala haddii la isku aqbali waayo Somalilandnimada iyo dimuqraadiyadda iyo mabaadi'da iyo kala duwanaanshaha iyo xisbiyada iyo barnaamijyada wallahi inaan la isku aqbalaynin qori iyo hoobiye iyo midi iyo nin meel u gala nin kasta qorigiiba gurigiisa yaal waanu garanaynaa cid ka dambaysa dhaqdhaqaaqyadan aniga iguma koobnayna sanadkan gudihiisa 3 qof oo wadan laga dilay khadar gureyto wariye xisbiga waa ugu horeeyo gacan baa laga jibay dhakhtarka way dabadiisa barqad xirsi jaamac batuuro xogayaha cadaaladda baa igu laba habeen ka hor iga horeeyo Ibrahim Dheere masaajidkiisa ee degmada Lixlaata ka jooba isna lagu dilay labada midna cid looma soo qaban wallahi baana laakiin tan ka hadhayno waxaan uga hadhaynin cadayntii baan haynaa haday laamaha amniga iyo sirdoonka iyo ay soo qaban waayaan ninka numbarka 419 soo garaacay codkiisu duuban yahay ee magaciisa saddexna saadka ku qorayeen saldhiga dhexe dhignay annaga soo qabanayna waxbaan iska celinayna markaad eegto siyaasiyiinta madax inay noqdaan u gucleynaya ayaa waxa ay bilaabeen in ay ka shaqeeyaan kala qaybinta bulshada ku dhaqan Somaliland iyo in ay maalin walba muuqbahiyaasha isaga jawaabaan midba midka kale iyaga oo ka indhala duruufaha uu dalku marayo iyo abaaraha baasan ee guud ahaan ka jira dalkan Somaliland xisbiga kulmiye waxa ka warqabteen bishii 12aad wuxuu waxaanu joojinay xafladaha abaarta awgeed laakiin maalintii ku xigtay oo bilaabay maalintuu baaqa soo saaray maalintii ku xigtay burcaadana joogno anagoo la mahadsanyiin ayuu haddana bilaabay 2 bilood baanu daawanaynay hadda marka taageerayaashaydu waxay yiraahdeen ma adkaysan karo marka annaguna saa shalay sheegay boor joogi karno taageerayaasha
marka xafladihii waa noo fasaxnay maanta ilaa ayuu maraya xisbiga kulmiye halka wax ka qaban lahaa sicir bararka markii hore wuxuu kaga mashquulay campaign waxay la tahay qaar baa marmarsoonaya ninkii xamar doonaya iska tago qaar horeba way tageen salaam calayhi oo malaha maanta cid walba hayso waa dhiilo ku soo kordhay jiritaanka Soomaaliland iyo habka ay u soconayaan qarnimadii oo qarankood u baahan yahay in arinta si qarannimo loo eego gudoomiyaha wadani oo gudoomiyaha baarlamaanka ana oo ninka saddexaad ee dalka oo barskoolka ku leh ka socon mayso oo sawir la isugu geeyay iyo kulmiye isugu geeyo sawirada kulmiye jaraa'idka istaan ma soo saaro Nairobi na jaraa'id iyo xarun kulmiye waxaan Soomaaliland ilaahay baa wata khiyaamo kasto loo galay shaqo kasto loo galay ilaahay baa fashilay horta ilaahay baa fashilay waana niyad wanaaga iyo halganka iyo adkaysiga ummadda Soomaaliland halka ilaa ka soo kordhay anigu waxaan leeyahay dad nasiib badan oo ilaahay ciribtooda barakada ka uga damcay oo taariikhda Soomaaliland ka baxsaday shirqoolka Soomaaliland ayaa tii hadii markii ku xumeeyay iyo dadka uu sanayay iyo wuxuu diiday waa ka baxsay taas waa Nairobi oo intaasan kaga tagaya laba xisbiga wadani maalmaha kan qaylo dheer ku dhuftay waxaanu ka xunahay dadka muwaadiniinta ah ee weli mas'uuliyiinta xisbiga wadani ah ee wax la yeelay aad iyo aad baan uga xunahay waxaanu ka qaybnahay gurmadka aan la soo qabta cid kasta oo dambiga gashay oo dhaqan xun oo xidhan noqon oo waxaanu ka dagaalamay hay'adaha amniga waxaanu ku dhiirinaynaa inaanu faraynaa inay ka howlgalaan oo ay xaqiiqada gaaraan cidda waxa fiirsan Kenya ku soo baxay waliba raqamada laga dhaqmo qaarkooda kama duwana kuna iska soo baxay waxa xaqiiq ah qabax yar in la siiyay istaan ninka qoraya waliba ma isla maxay marka waxa soo kale dees afduna weydiiso inuu soo celiso sidoo kale waxa iyaduna dalka ka jirta sixir barar saameeyay dhammaan bulshada ku dhaqan Soomaaliland iyadoo ay maciishada suuqyada Soomaaliland ay aad u kacsan tahay laakiin waxa la yaaba mooganaanta siyaasiyiinta madaxtinimada doonaya oo aan ogeyn cidii ay codka ka doonayeen duruufaha iyo waqtiyada adag ee ku xeeran haatan la joogo dhibaatada ugu weyn ee hadda dadka ay abaaruhu saameeyeen haysata ayaa ah biyo la'aan aanay haysan waxay cabaan iyo waxay xoolahoodii waraabiyaan midna bal hadaynu soo qaadano magaalada Hargeysa ayaa waxa jirtay in uu soo rugmaday dooxa weyn ee magaalada Hargeysa 20kii bishii 11aad sanadkii 2016 sida caadiga doox kasta oo biyihiisu soo rugmadaan oo kamid ah dooxyada Soomaaliland ayaa ah mid ay biyihiisu ku darsamaan badda iyadoo aan laga faa'iideysan haddaba waqtigani uu soo rugmaday dooxani ayaa ahaa waqti aad loogu baahnaa oo xaalad aad u daran oo abaareedina ay ka jirtay dalka balse waxa nasiib darrada xukuumadda iyo asxaabta ku hirdamaya siyaasadda indhahoodu ma qabtaan danta iyo duruufaha dul hoganaya ummadda ay masiirkooda ku fadhiyaan balse waxay kaliya ay arkaan loolanka dhexdooda ka jira iyo xaglinta olole aan waqtigiisii gaadhin waxa lagama tagaana in ay gudiga abaaraha heer qaran ay ku hawlan yihiin la tacaalista ay dadka abaaruhu saameeyeen laakiin waxa hadda soo waajahday dalka ee la yaabka mudan waa dad doonaya in ay noqdaan madaxda dalka ayaa waxa ay noqdeen kuwa ku foogan ku mashquulista in ay muuqbaahiyayaasha iskala hadlaan iyo xaflado ay u qabtaan dad ku soo biiraya